Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka la muuqaal cusub kusoo dhawow Bitaj. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa oo ku saabsan yahay sida WhatsApp loogu xidho two step verification. Kusoo dhawow muuqaalka. Haddaan xogo yar faahfaahin ka bixiyo two step verification WhatsApp maxay markaasi faa'iido leedahay? Waxa ay faa'iido leedahay oo ku qabanaya two step verification inaad ku xidhato WhatsApp-kaaga amaana darteed ama security. Waxaan hore soo sheegnay oo muuqaalada kanaalka kamida markaasi haddii aad aragtay two step verification sida Gmail loogu xidho. Two step verification waxa weeyaan adeeg markaasi ku badbaadinaya account-kaaga ammaankiisana adkeynaya. Saas darteed haddii aad WhatsApp-kaaga ku xidhato two step verification waxa uu markaasi ku jirayaa ammaano oo cid markaasi kaama xadi karto. Tusaale ahaan haddii aad lambarkaaga ka bedelayso WhatsApp-ka hadda aad isticmaalayso oo WhatsApp kale ku bedelanayso, WhatsApp-ka kale marka aad gasho ee lambarkaaga geliso halkii uu kaaga soo diri lahaa 6 kood oo markaasi aad ku verify garayso sim card-kaaga kugu soo diri lahaa, waxa uu kaa weydiinayaa inaad geliso lambarka two step verification oo adiga oo kaliya ayaa garanaya. Sidaas oo kale haddii qof kale lambarkaaga qaato oo uu istiraahdo ku samayso WhatsApp-ka ama ku karagare ama ku jabso istiraahdo oo markaasi WhatsApp kale ku samayso istiraahdo, waxa uu isagana weydiinayaa two step verification lambarkaana adiga oo kaliya ayaa garanaya oo markaasi qofkaas ma geli karo. Bal hadda baan muuqaalka guda galno qaabka loogu xidhanayo iyo qaabka uu shaqeynayo. WhatsApp-kaaga markaad soo furto, WhatsApp-yadu way badan yihiin, GB WhatsApp iyo WhatsApp noocyo fara badan baa markaasi jira oo qaarna crack yihiin. Markaa WhatsApp-ka originalka wuu ku shaqeynayaa, noocyadan kalena haddii aad isticmaalayso iyagana waa ku shaqeynayaa. Markaad WhatsApp-ka soo gasho, saddexda dhibcood ee koonaha ayaad soo furi doontaa. Saddexda dhibcood markaad doorato, halkan waxaad ka sii xulan doontaa settings. Settings markaad sii xulato, halkan waxaad markaasi ka sii xulan doontaa account. Account markaad sii xulato, waxa aad halkan ka xulan doontaa two step verification halka ay ku qoran tahay oo kaaga muuqato. Two step verification markaad xulato, halkan ugu hooseysa waxaad markaasi ku xulan doontaa ama aad ka sii dooran doontaa enable halka ay ku qoran tahay. Halkan sarena markaa waxa uu kugu sheegaya oo halkan sare kugu qoran marka aad two step verification ku darsato WhatsApp-kaaga, waxa uu markaasi kugu register gareynayaa two step verification. Hadhow markaad tiraahdo lambarkaaga WhatsApp kala gasho oo koodka halkii uu kaaga soo diri lahaa two step verification baad markaasi isku register gareynayso lambarkaaga ku samaysanaysa WhatsApp-ka. Haddaba halkan enable ku qoran tahay ayaa taaban doontaa. Enable markaad ku dhufato, halkan waxaad gelin doontaa 6 lambar oo adiga kuu gaara oo nad markaasi ilaawin. Hadhowna aad ku gasho WhatsApp-kaaga haddii qof kale uu kaa xado lambarkana ku badbaadiya. 6 lambar ban markaasi halkan gelin doonaa. Hadda 6 lambar ma geliyay, waxaanad markaasi mar labaad ku celinaysaa 6 lambar. 6 lambar markaad ku laba celiso, halkan waxaad markaas gelin doontaa Gmail haddii aad leedahay. Haddii aadan Gmail lahayna halka yar sare ee skip ay ku qoran tahay ayaad markaasi taaban doontaa. Haddaba waxay ka caawinaysaa inaad Gmail-kaaga gashataa, waxa uu ka caawinayaa inaad hadhow ku soo ceshato lambarkii. Tusaale ahaan waxaad ilowday 6 lambar ee imika soo dhaafnayno meesha gelinay. 6 lambar markaad ilowday, waxa uu kaaga baahday inaad WhatsApp-kaaga geliso 6 lambar balse waad ilowday. Waad ku forget garin kartaa markaas Gmail-kaaga oo forget password inta tiraahdo ayaad 6 lambar dib u heli kartaa. Taasoo ka caawinaya. Haddii aadan Gmail lahayn oo Gmail-ka iska daysana oo aad skip tiraahdo, waxa uu markaa halkan kugu sheegayaa haddii aad ilowday password-kaaga oo Gmail-kaagana aanad ku darin halkan, ma awoodi doontid markaas in aad WhatsApp-kaaga isku register garayso oo waa ku diidaya ilaa aad soo xasuusato two step verification. balse skip ma odhanaysid oo waxa aad markaasi samaynaysaa inaad Gmail gashato. Halkan Gmail baad samaysanaysaa, kadibna Gmail baad halkan gashanaysaa. Haddii aad hore u lahayd mobilkaaga kugu jirina halkan aad iska gashan doontaa.
hadda gmail ban markaasi halkan gelin doonaa. hadda waxaan geliyey markaa gmailka markaad geliso next baad odhan doontaa. next markaad tidhaahdo halkan waxaad ku labacalin doontaa gmailkii aad gelisay. hadda gmailka marka aad saa u geliso ee aad confirm garayso ku labacaliso safe baad markaa halkan odhan doontaa. safe marka aad tidhaahdo si automatic ayuu markaasi kugu xidhmaya two step verification. okay, two step verification hadda waa enable marka uu ku xidhan yahay dhan baad odhanaysaa. saasay ku dhamaatay. iminka two step verification ayaa noogu xidhan. haddii aad doonayso inaad binka bedesho ama markaa 6 lambareed meesha gashatay aad bedesho, halkan change bin ay ku qorantahay baad ku dul dhufan doontaa. dabadeedna waxaad gelin doontaa lambarkeed gelisay. dabadeedna next baad odhan doontaa lambarkeed ku labacalin doontaa. saasuu markaa kugu bedelmaya. haddii aad gmailka bedelaysana isagana sidoo kale halkan aad markaa 2 jeer gelin doonto. oo waa kan taana halkaas kusoo dhigaya, taana 2 tallaabo oo keliya. ka cusubad kii hore gelinaysaa kadibna ka cusubad gelinaysaa next baad odhan doonta. haddii aad doonayso inaad iska xidho, halkan disable ay ku qoran tahay baad markaa ku dul dhufan doontaa. saasuu kaaga disable garanaya. odayga arkaya hadda inable markii hore halkii aan soo dhaafnay markaa dib inoogu celiyey. two step verification waxa uu kaa caawinaya markaa in aad geliso marka aad WhatsApp kale isku register garaynayso. aad iyo aad buna markaa kuu badbaadinaya. lambarkaaga haddii qof kala xadana safety bay ku noqonaysaa. qofkaas ma geli karo ilaa iyo uu helo lambarkii two step verification. waad fahantaan hadda filayaa inaad ka faa'iidaysatana waan jeclahay muuqaalkan. saas darteed ku xidho two step verification si hadhow uu lambarkaagu kugu badbaado. aad iyo aad baad mahadsantahay. tan iyo muuqaalka dambe intaan ku kulmayno. wassalaamu calaykum.